ayaa warbixintan waxa uu ka diyaariyey taariikh nololeedkii xuseen sheekh axmed kadare. allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ahaa suugaanyahan afyaqaan iyo qoraa Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku dhashay tuulo u dhow degmada Cadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadku markuu 1934 waxaa yaraantiisii uu ku soo barbaaray degmada Cadle iyo miyiga u dhow isaga oo ka soo jeeday qoys xoolo dhaqato ahaa. allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ahaa allah u naxariistay kadare uu siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da xilligaasi oo loo dabaaldegayay 40 guuradii ka soo wareegtay qoridda afka Soomaaliga. laakiin marka hore wariyahayaga magaalada Muqdisho Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa warbixintan waxa uu ka diyaariyey taariikh nololeedkii xuseen sheekh axmed kadare. allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ahaa suugaanyahan afyaqaan iyo qoraa Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku dhashay tuulo u dhow degmada Cadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadku markuu 1934 waxaa yaraantiisii uu ku soo barbaaray degmada Cadle iyo miyiga u dhow isaga oo ka soo jeeday qoys xoolo dhaqato ahaa. xuseen sheekh axmed kadare ayaa waxa uu ka mid ahaa laashimiintii caanka ku ahaa suugaanta shiribka markii uu aadka u da'da yaraa. Muqdisho markii uu yimid kadare waxa uu ku beeray dhalinyaradii gobonnimadoonka Soomaaliyeed sida uu isaguba sheegay 1952 ayuu ku fikray inuu soo saaro far af Soomaali ku qoran fartaas oo markii dambe magaciisa qaadatay Kadariya waxaana ay ka koobnayd 24 xarfood. anigu waxaan 1952 ayaan anigu farta alifay anoo isle markaa dhammaysaba horaha laga qoro afka oo aan yani wixii dhacayoo ay soo martay xaajadu anigu aan sugay markaas faraha markaa jiray xuruuftan laatiinka oo dadku waxa iskaga qorto carabiga oo dad wax ku qoro laakiin ninku qoraba asan wuxuu qoray akhri karin far Soomaali cusub oo markaas xamar labo ay maaragtay ka jirtay Cusmaaniyada iyo xuruufta anigu aan sameeyey. Cusmaaniyadu waa ka horeysa waqtigaan anigu aan sameeyey iyada markaan bartay kadib aan is iri fartaan mid ka fiican raadi maxaa yeelay xuruuftu waxay ahaaday xuruuf aan lahayn foormadan kursiidada la yidhaaho gacanta lagu qoraayo isku dardarmays aan lahayn. 1966 waxaa kadare uu gudoomiye ka noqday urur dhalinyaro ka jiray magaalada Muqdisho kaas oo la oran jiray golaha dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Council. kadare waxa uu ka soo shaqeeyay raadiyo Muqdisho isaga oo ka mid ahaa dadka loo tixraaco af Soomaaliga. xuseen sheekh kadare waxa xubin firfircoon uu ka ahaa guddiga qoraalka afka Soomaaliga markii af Soomaaliga la qoray kadib kadare 1974 waxa agaasimo uu ka noqday waaxda afka iyo akademiyada cilmiga fanka dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. kadare waxa wasiirkii warfaafinta uu ka noqday dawladdii Cali Mahdi ee aan taabagelin 1990. xuseen sheekh axmed hilowle kadare waa mu'allif sameeyey riwaayado badan waxaana laga xusi karaa niman joogin ma jirayo sabool dagaal uma daabo iyo kuwa kale. dhanka kale waxa uu ahaa qoraa waxaana laga xusuustaa buuggiisii caanka ahaa ee Waasuga iyo Warsame. waxa uu alifay maansooyin badan waxaana uu ka mid ahaa suugaanleydii ka qayb qaadatay silsiladii caanka noqotay ee Deelley ee ay ka qayb qaateen abwaaniin badan oo Soomaaliyeed. abwaanka weyn Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo tuhmayay kadare inuu yahay nin afka iyo magac bixinta ku fiican ayaa gabay dheer oo uu tiriyay oo la yiraahdo dibadyaal waxa ku jiray halka dayr waqtigu dhigo dib baa looga sheekayn kadara oo magac bixin. kadare waxa uu aad u yaqiinay naxwaha afka Soomaaliga waxaana uu ahaa nin koobay nolosha miyiga iyo tan magaalada. 2 sano ka hor xaflad lagu qabtay magaalada Hargeysa oo loogu magac daray Hargeysa iyo habeenkii kadare ayuu aad uga sheekeeyay taariikhda dhibaatada loo soo maray qoraalka afka Soomaaliga waxaana ugu dambeyntii uu ku soo qatimay shirib oo kolkaas naftiisa ka curiyay. todoba aan isku tuhmaan tolka wax uga taabaha todoba waxyaalo todoba aan isku tuhmaan tolka wax uga taabaha xagga da'da 17 inta waxyaalo la jira marka waxaan isiriyaan hadhow la dhihin dadku yaqaaniyo ku dhihin beenaad sheeg todoba aan ka tuurayna intaan la tuhmo wayga taasanayd. waxaan idhi haddaan timaha taabtana wax ii tafnaa jiraan tiba haddaan timaha taabtana wax ii tafnaa jiraan tiba timihii taagnay male hadda goofiga qaado waa kale xarig haddaan tallaabta tuurana intiis tafaan dhulkiistuba iska agaas waxaa idhi taydaara ila toosano 10 jiraan isku tashaa
qof isdiimaysa halkamaysa qof walba asagoo sidaan ruuxga baxaya meelay tacsifo aygataa haddaan tagaan si istuhmaanay bamanjeernimadii aan isku tirihay nin ugufaca markuu dhintay aan tacsida tago markaasaan istuhmaanay waxaa idhi tii allana haddee timaad leelama tashan waa tarxiib leelama tashan waa tarxiib dii hadda maanta amlakamud ii yimaad sidii qof la tarxiil la diqanaya ahaye cibrigii waa dhammaadeen nabad dhihi maayo amlakamud maxamed ibraahim macalimu b b c muqdisho.